أي خسارة كذا شيء لما شيء دعوة بالعرض تكور بسم الله الرحمن الرحيم أردت واحد عدم في بشها السدح دي قبل بدي وحالك كل انتي أفر قفنا كل وعمي أدو خسارة جديد يو أبور لأنه يسوق قاعدي مركب كوباد تحسب نودرنا تذكير انتي تذكي أي كده انتين إلى هاي سمري إيمان كسيو iyagana waxaan leenahay naxariistina Allah ka waraabiyo arintaas dhacdadaas intaanu hadeer ka hayno waxana waa sidii wax ay u dhaceen waxana waa wax ay hadeer arintu joogto sidii ay wax u dhaceen warka waxaan ku haynaa nin sarkaal ciidanka ah ayaa wuxuu weeraray nin meel fadhiya oo dukaan haysta oo marka isaga wax dembi ah oo loo haystay aanu jirinin ninkaasu ninka gaadhigu saartay dhirbaaxu ku dhuftay uu aflagaadeeyay markii arrintaas u dhacdayna dadkii dhagax bay ku boobeen way shiideen halkaas ayaa waxa ka dhacay marka dhibaato rasaaseed oo labada dhinac halka waxa ku dhintay nin iyo laba askari markii ciidankii magaalada soo gaareen ciidankii ninkii waa laga saaray markii ciidankii laga saaray adigu meedkii isagiiba waa la soo qaaday arinta macluumaadka aanu haynaa waxa weeye ninka sarkaalka ah oo marka ninka ganacsiga ku jira ee dukaankiisa haysta aaday oo weeraray bay arintaas ku bilaabatay arintiina hadda taliska ciidanku si wanaagsan oo mas'uuliyad leh oo dadnimo leh bay u maamulaan ilaa hadda guddi bay u direen taliskii qaybta taliskii aaga abaandulihii ciidanka qaranka nimankaas waxay u tageen saraakiishaas iyo maamulka gobolka waxay u tageen deegaankii dadkii deegaanka waxa la isla afkartay in arintana la qaboojiyo wixii khasaare ah ee dhacay ee meesha ka dhacayna meel la mariyo ayaa taliska ciidanka waanu aragnay wasiirka arrimaha gudaha oo si wacan isna arinta gacanta ugu hayay waanu aragnay madaxweynaha ku-xigeenka waanu aragnay qolada ciidanka waanu aragnay ilaa hadeer arintii si wacan baa labada dhinac gacanta loogu hayaa waxaan hadda la sugayaa report ka imaanaya gobolka iyo taliska ciidanka arinta in la boombooniyo marxalad boombooni hadir kuma jirto waxay ku jirtaa marxalad aan isla fahamsanahay hadii wax yaro khalad yimaadaan afkaarta iyo xagga taladana waanu isla meel marinana ciidanka dhintay sabir iyo iimaan dadka Allah ka siiyo iyo ciidankoodaba dadkii shacabka ahaa ee halka lagu dilay ee barmageedada ahaa ee iyagu aan waxba galabsan iyagana Ilaahay caafimaad siiyo inka markii hore ugu dhintay qoradii sheeka ku dhacay laba uu kala go'ay arinta marka waxaan leenahay cunfi hore ma jirinin ciidanka iyo nimankaas waa wada joogan waana hadee area-dana sidii khaatimo wada hadalka loola yeeshay arintaas waxay maraysaa meel aad iyo aad u wacan oo ciidamada iyo dadka deegaanka jooga aanay wax shakiga kala qabanin waan arkay dad ka hadlaya telefishinada oo arinta khaatimo iyo cali khaliif aragtiyo kala duwan ka qaba cali khaliif anagu waxaan ugu tagnay magaalada xilxil la yiraahdo annagoo ah gudoomiyaha baarlamaanka ninka loo xildhibaana odayaal ninka laba calaamaan ku aragnay waxaan ku aragnay nin turaya inuu yahay nin dadkiisa iyo dalka labadaba u turaya inuu yahay waxaan ku aragnay nin wada hadallada ay daacad ka yihiin wada hadallo daacad ah oo maamulka khaatimo nin baa maamulka khaatimo ictiraafsanin waa run oo system Soomaaliland ma ictiraafsana laakiin heer wada hadal baa lagu la jiraa wada hadalkaasna wada hadal aan u aragno dan dadka deegaanka jooga iyo isagaba waxaan leeyahay dadka kale ee ka hadlaya arinta waxaan filayaa wixii khalad ah in la saxaawacan waliba qoliyaha iyaga halka jooga inaanu heshiimaysanno yaan deena loo arkino maalinta la yiraahdo nin baa imaanaya yaanan waxba sas muujinin way noo dhaarteen hadii qoliyaheena halka jooga aad shaqsantiin waxay noogu dhaarteen inaan xil iyo xoolotoon aan inagu imaanaynin arintaas aad iyo aad baan ugu qanacsanahay maanta cali khaliif inaan xoolo ka rabin halka kan xil la ka rabinin arinta khaatimo hadda baa aaminsan Soomaaliland wada hadal galo oo ay ku jirtaa wada shak siyaasadeed oo ku salaysan xagga wax qaybsiga in laga bogsoodo oo laga dawoobo xukuumadda Soomaaliland ay diyaar u tahay sidaan ku arkaynay
qoladaasuna waxay u tahay diyaar shakiga iyo dhangaalnimada in laga daayaan taana jeclaan lahaa taana intaan warka hayaa waa taa waxaan filayaa bisha 20keeda shir dambe la isugu imaanayaa shirka ka bacdi waxaan maqlayay qolada aan u tagnay inay u yeerayaan wixii beesha dhulbahanta ah ama khaatumaha ahaadeen ama yaanay ahaan wixii tala ah ay ku darayaan iyo wixii sax ay ku darayaan in halka marka la dhigo intay noo sheega waa inta dadkana hadda waxa daashaday khilaaf in khilaafka la yareeyo oo intii la yareeyo ayaan ku talin lahaa arintii markaan ku noqdo kala baydh waxaan arkayay wasiirka gaashaandhigga oo arintaa kaga warramay isagoo aan filaya inaanu war badan u hayn oo sheegay nin dambiile ah iyo gaari dambiile in la caydsanayay gaari dambiile oo la caydsanayay ma jirto nin dambiile oo la caydsanayay ma jirto arintaas khadab ay ku dhacday khadab ninka sarkaalku ka yimi wixii sababay iyo wixii ku kalifayna gacanta lagu hayaa deegaanada baaritaan baa la gelinayaa wasiirka gaashaandhiggana waxaan leeyahay nin odayaa tahay xubsiimadu aad iyo aad bay wanaagsan tahay hadallada meel fogaanaya ee jeeska u muuqdana inaanay mujtamaca u wacnayn baan filayaa ama kuwa hor noqoto ama kuwa halka hadeer noqotee anu cadab nin weyn odayaan u aqaanaa inkastoo da'da iyo waayuhu arrinkeeda leeyihiin waxaan leeyahay in laga taxadaro hadallada xagtinta ah ee aan dadka dhagahooda u wanaagsanayn ee aan qofka afkiisa u wanaagsanayn anigu intaasaan mid laba dafiri karayo waa run amniga gobolku hadday tahay beeraha hadday tahay magaalada securitygeeda dhaliil way jirtaa weliba dhaliil aan yarayn baa jirta laakiin dhaliisha xagee la saari karaya ma maamulka gobolkaynu saarnaa ma maamulka ciidankaynu saarnaa ma mujtamaca meesha degan maynu saarnaa ma xukuumadda dowladda dhexaynu saarnaa xagee la saaraya taa waa lagu kala duwan yahay waxaan qabaa dhaliishu inay meel walba jirto dadka shacabka deganna dhaliil ay leeyihiin inay jiraan marka xagga qabaa'ilka laga hadlayo qabaa'ilka habka loo mari jiray waxay ahaayeen ama iyagoo inay wada hadlaan ama dad islaam oo ehel oo kale wada hadla si ay jiraan waa dhaliil jirta haddii la wada hadli kari waayo anigu reer baan ka soo jeedaa reerka kalena waa reer aanu ehelnahay khaladaadka qayb aan ku leenahay waa jirta wax kaloo la tuhumayana waa jirta oo aan caddayn maamulka gobolku waa maamul jilicsan hadday ciidan noqoto iyo hadday resource noqoto way jirtaa dhaliili laakiin maamul dhaliil la saari karo la oran karo maamulka gobolka dhaliisha leh waa cunfi ma qabo wasaaradda arrimaha gudaha aan dhaliilayn maamulka gobolka aan dhaliilayn ciidankaana aan dhaliilaynin dhaliisha jirta waa dhaliil shacab iyo ciidan iyo maamul la wada leeyahay haddii cadaalad uu sameeyo aan cid la cambaaraynayn haddii cid la cambaaraynayn waa kiiskeeda qof fuulayo waan ka xumahay telefishinada in qabiil lagaga hadlo oo reer hebel baa saas la yiraahdo aad baan arintaas waxaan leeyahay inaan gobonimo ahaan wanaagsaneyn garash ahaan wanaagsaneyn nin oday ah oo magac leh intuu soo fadhiisto meel inuu reer hebel baa sida ay yiraahdo waxaan qabaa qabiilka uu odayga u yahay afkiisa ku hadli maayo qabiilka kale uu asaa ku yiraahdaan cunfu ku abeeri maayo arintaa waxaan leeyahay yaa la buunbuunin odayga wax yirowna dadka raali geli kuwa wax lagu yiraahdowna qof hadalkii cunfu iyo cadaawadi yaan idin gelin taara intaasaan leeyahay cadayn karaynin waxaan la isku cadayn karaynin in public loo leeyahay ha ma jirto laakiin waad moodaa tuhumeenay jiraan tuhumo la xidhiidha waliba si tuhumo qabiileysan inay jiraan ceebna maaha dadku inuu ama interest qabiil ilaaliyo ama interest qofad ilaaliyo waana tuhum waxaan cadayn karayo hadda farta ku fiiqayaan ma jiraan laakiin tuhumo la tilmaami karaa oo muuqda way jiraan waqtigeedana la sugayaa Soomaalidu anigu ma qabo dawladda dhexe dil bay ka sameeyaan salaasano ama qof orso qof dil anu ra'yiga ma qabo wana ra'yi aan cadaalad ahay taasi wala oran karaa maxad wax u qaban weyneen su'aal kala imaanaysa dilalka qorshaysan dhowr iyo 20 qof ku dhintay kuwa ilmaadeeradooda lagu dul dilay iyagoo qoriyo haysta baa jira maxaa loo dhawaayay haddii inta dawladda dhexdeeda qori baa sidaatay ninka inaad erka dilay bacso oo qabo arintaas waa taa sheegayay dawladdana waa la oran karaa hadday ciidan noqoto iyo hadday dadaal noqoto way gaabinaysaa dadka shacabkuna waa la oran karaa Hargeysa sheelkaas waxa ka baxsaday niman dadka ciidanku ma soo dadka shacabka soo qabtay haddaanay dadka shacabku iyagu dareen aan muujinaynin dambigu markuu dhaco inay dadka la wadaagaan ee dawladdu qaad karta ma jirto dawladnimadu waa shacabka iyo systemka istugsada hadday labadii istugsan waayaan oo ninka dhulbahantee laascaanood jooga ama ayda jooga ciidanka Soomaaliland uu arko shisheeye
siduu ninka shisheeye wax ugu qabanaya haddii la kaashan waayo oo kaa booliiska ama kaa ciidanka ay nin shisheeye u arkaan oo marka qof la diraahdo aamo ha qabtee dee inaad kan nin naftiisa ilaaliyo mooyaane naf kale wax tarkanayo wuxuu inay caawiyaan bay ku wacan tahay inuu ninka shacabkii askariga caawiyo askariguna shacabka caawiyo marka arrinta maqan waa taa in cadaalad laga sameeyaa wacan cadaalad ahaan ciidanka meesha jooga waan dareemayaa hadday booliis noqoto iyo hadday maamul noqoto in aan awood fara badan oo dawladood lagu riixay aanu jirin laakiin dambiga dawladda sameeysta ama ciidamada sameeya ma qabaan ra'yiga